ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay warnimayow reer kalamaan waxaan idin leeyahay walaalooyinow hadalka wacan sadaqa weeyaan way wanaagga la isfaro xumaha la iska waanshaa waraar hoose kii marahayee wecsan ma ahaane haddii wadar ahaanteen islaam lagu walaaloobay weynaanna faray wada jir aan waaxid noqonnaaye waslade iyo jidh baynu nahay ruux ku wadayaale wehelkaaga lama gooyo iyo waaxyo kaa mid ahe soomaalidu dagaal bay waddaa aan weji lahayne war ma waalannahay soo caqligu inama waantoobo weedaan mahadsanto horta ulmaado masaajida siinka gayliyaayno gabiilkan iska dhaafa midoowa qarankin dhisda siin lahaayaqe hebeebsideen haliintoonum isku bedel adiina geega hoos ku hole fadheeti soomaalidu dagaal bay wataa markaad leedahay ma in shabaab la iska dhacshaa diidaysa warwarka ujeeddadiisu waa idin garab maraya waxaa laydin yidhi soomaali weynay dheexaad walaac iyo walbahaar u joogto silic u heshanaysee haddii aanad waalnayn waana kuuma laabnee wakhtigii ku dhaafiyo wax ku qaada waaya horta kaalaya madaxweynuhu soo astaan qaran maaha sidee loo bedelayaa marka astaanta qaranka war astaanta qaran waa afar sano war waxaa la yidhi waxyeellada dhacaysiya fidnada idan walaaqaysa maydkaawan qaran waa baryaba ee waddada yaalla wixii sababay aafada haddaan dhab isu weyddiinno waa beenashaagiyo runtoon ka wahsanaynaaye kawaantooba soomaaliya ha iska sii wadine warallow warkakiida aan kaa suusaday abwaantii macadda ilaahay naariisa weliba eray bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay degaysanaysaay war horta dawladda iyo wasiiradeeda iyo ciidankeeda maxay qabtaan oo kaale muufi iyo canjeera ma iska cunaano maandhooyo haddaan ey kaar wata meel kasta ma ku mari karaa ayay war mahaysida madaxweyne cali mahdi inuu edhikaar qaato waa diiday aryaada waxaa la yidhi wasiirre iyo madaxweyne iyo waardiyaha hoose nin waliba xil baa loo wadacay waajibkiisa ahe inta laga wahsada hawshayaan beenna loo warin warnimayow macallin masaariha wuxuu yidhi shakhsiga soomaaliya ee dalkiisa jooga waa naflaha ugu adkaysiga badan adduunka qof kasta wuxuu bixinayaa koronto biyo waxbarasho caafimaad canshuur intaasoo dhanna cid la qaybsata ma jirto wuxuu ku sii daray waxaa kaloo uu bixinayaa mag qaaraan xaqulqalin birqaad baad xaqsalaamo shaxaad iyo waxyaabo kale intaas oo nuucna cid la qaybsata ma jirto yidhi war macallinka masriga wuxuu iloobay in intaa qarax u sii dheer yahay soomaalida aan cid la qaybsanaysa la arag war macallinka masaarida puntland oo jooga qaraxna kama dhaco aryaadhaha macallinka masaarida wuxuu moog yahay in lamadaan beri qarax quraacna loo kaga dhigaayo qabyaalad iyo dhibaataya quruna waaganala ku hoggaami doonee qaraxdaad ku quraacdaya qabyaalad loo qalqaaliha qaraxdaad ku quraacdaya qabyaalad loo qalqaaliha haye war soomaalida sidaas u cadiban oo intaasoo dhibaato cid la qaybsanaysa aan la arkin qofkii yidhaahda adna uma maqna alna uma qodna nabadii nolol waxay ugu jawaabaysaa qaran dumisaata macallinkaas masaarida hooyo soomaaliyeeda dhashaan u maleeya taga geel la'aan allah idin dhige waryaa halna cunin geel beele waryaa geela goofka iiga bixiya